السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الدعوة ديال سود وهذا ومركلة ولكن هذا كرامة طبعا هلقad قد داwana sanoobarta youtube kuley هذا كرامة haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqato fadlan subscribe tan ugu sharaf isla markaan riixka balaalka casi ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo dhacdooyinka kala duwan ee xiisaha leh halkan ku soo gudbino haddii aad horey ula joogtayna waxaad tahay mulkiilihii channelka kun iyo kow jeer ayaad mahadsan tahay madaxa ayaad inoo saaran tahay waxaan kaa codsanaynaa kaliya inaad muuqaalkaasi u baaho bulshada u sii gaadho aad like tan ugu soo ranaataan halkan waxaan ku hayaa runtii muuqaal khaas ah oo ku saabsan markaasi dhacdadii indhoweydba ay hadal haysay bulshada Soomaaliyeed iyo wararkii kala duwanaa ee ka soo baxayay eedihii iyo tuhunkii iyo waxyaabihiisa la isla dhexmarayay qoyska Soomaaliyeed ee farxiyo fiska iyo Mubaarak October waatii ninkii Mubaarak October ahaa weerar ay dhulka lagu soo qaaday isla markaana meel walba laga soo eedeeyay falal lagu tilmaamay sixir lagu tilmaamay wax dhinaciisa ka hadlay oo socda meena araglaantii farsame ayaa haatan dhinacayga fadhiya oo dabcan sida uu sheegay boqorku waxa uu ka jawaabayaa ama uu ka hadlayaa war ka baxay oo ay baahisay Horyaal TV boqor soo dhawaanayahow aad wareysigaad ka qaadeen Casayr oo yiri waxaan walaalnay fadxiya markuu roo salaamaya salaam qiimo laan u dirayaa isaga iyo ehelkiisa iyo inta xagana la daawanisaba hadalkayga soo gaari doonaba Soomaali meel wala joogtay waan salaamayaa midda labaad wani hadalkiisa hada kuleyba in badan waan soo dhaweynayaa Casayr waxaan leeyahay lamaanaha ma ogtahay aad ka hadlisid waddaanu maan joogin meherkooda meel ay aqbalti iyo sawashti iyo arrimihii aad tirinaysa meel la isku laawdo maan joogin laakiin waxaan maqlay inay labadani laba fanaanin yihiin dadka iskugu dhowdhow dadkana fanaaniintu Soomaaliyeed inay yihiin oo iyagu ehel isku yihiin oo cid walba iska xigaan oo ay intaa iskuursadaan fanaaniintu isdoortaan oo ma ogtahay wuxuu yidhi wuu xanuunsanaysay walaashay oo dee xanuunkaan waxaan u qaadayaa waa sixir iyo waxaasiyo marka Casayr waxaan oran lahaa sixirka lagu sheegaba oo jacaylka dadka Soomaalidu way ka ma ogtahay arrimahan way ka yaraga badaan laakiin jacaylka sixir ka weynba ma jiro xanuun jacaylka ka weynba ma jiro anaguna soo maray bayloodo jacaylku gowdhe marka dadku laba qof oo isjeclaadun bay oranayaan waa la sirxay way xanuunsanaysaa waa sidan laakiin anu umad Soomaaliyeed boqor sixirba ma sheegin isagu waxa weeyaan qoys ahaan waxay ka hadleen inaanay jirin meel ay kula xidideen deegaanka dabcan aad ka soo jeedo dadkay sheegayaan xanuunkay sheegayaan ma sheegin laakiin de Soomaali baana waayeel hortooda ma ogtahay aan lagu barxa waxa weeyaan afka uu ka dhowriyay wax badan oo wanaagana afkiisa uu ka soo saariyay intaan u dhageystay anigana waxa la iga rabaa si sharafta lahayd iyo wanaag lahayd uu hadlay inaan sideedu hadlo marka hore Casayr magaalada Hargeysa anuu madax dhaqameed baan ahay farxiya Soomaaliland ma dhalan inaka kale fanaanka dhasheen isaguna Puntland uu ka yimid yaani waajibaad waxay ugu ahaa dad moogta qariib markay yimaadaan inaan soo dhaweeyo oo xaflad u sameeyo isagoo dumaanta yimaado magaalada Hargeysana waxay ugu waajibaa in allaalintu raali ka yahay inaan ugu yeedho oo xaflad ugu sameeyo oo ku soo dhaweyno waa dhaqanka madax dhaqameedka marka anigu farxiya iyo inanka guurka iskuursadeen waan ku farxay sidaa daraadeedna waan ugu sameeyey reerkan uga soo jeego Casayrna gaafo ninka la yiraahdo dee horuu noola xidido xamar baa habla igu guursaday wali noogu qaalsanaa xamar ku guursaday marka dee inan kama fiicna marka waxa weeyaan haddii wax qaldameen oo uu leeyahay hal la soxo diyaar baan u nahay waan la saxayaa waan soo dhaweynayaa wax laali wuxuu iga baahdo diyaar baan u ahay wixii qaloocday ee reerkaas ma ogtahay tabaniyaan bay reerka ka tabaniyaan waxaan diyaar u ahay inaan saxo oo ku soo dhaweey wixii karaanka iyo sax karayo
talabaad anigu sidaan horeba kuu sheegay dee maan joogano meesha isku guursadeen laakiin markii aan weydiiyey waxay igu yidhahdeen anigu diintii sax ee reer daami baan isku guursanay diintii reer daami ee saxda ahayd ayaan isku guursanay bay yidhahdeen markaa waan ku qancay. maxaad uga jeedaa diinta reer daamidu maxaad ka wadaa? diinta reer daami waxa weeyaan waa diintii malku jibriil nabi maxamed loogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed innakana ina soo gaadhsiiyey asxaabihiisuu soo dhiibay ee layska soo dhaadhaxlayey weli dhaqankaas waa sidaa ee ahayd inay muslimiintu inama almu'miniin ukhwa uu ilaahay yiri ina soo gaadhsiiyey muslimiintu inayna kala sareen shuruudaha guurka muslimku wuxuunbuu ku ansaxaa lagu buuxiyaa qofka akhlaaqdiisu hadday fiican tahay dhaqankiisu fiican yahay nin muslina yahay ina muslimnimada u guursan karaa. laakiin diinta inta badan soomaalida ma wada oran kale soomaalida barkoodii inta u badan ay haystaan waa diintii ilaahay markuu ku yiri moogtay iblis u sujuud aadan anaa abuuray uu yiri anaa ka khayr badan anaa ka sareeya aniga la isaga dhooba laga abuuray aniga naarbaa laga diintaas bay inta badan yiraahdaan marka reer le anaa reerka ka afdalsan anaa reerka ka sareeya oo kelmaddan anaa meesha baad soo gasho waa diinta shaydaanka ay wataan marka anigu diinta shaydaanka isku guursano waxaan isku guursanaa diintii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam malku jibriil ilaahay ugu soo dhiibay uu ka dhigay muslimiintu inay walaalayihiin inay moogtahay ay ku kala sareeyaan inna akramakum cinda allahi atqaakum wax kaloo qabiil ku sareeya ayna jirin laakiin diintan qabaa'ilka ay haystaan soomaalidu annaka ilaahay waa naga moogtahay berri buu naga yeelay aciyaatu billaah ilaahayna kamaanaan baryin moogtahay inaan moogtahay ku naar mudano oon ilaahay kaga fogoano kuwa kale moogtahay anaadale moogtahay iyo qabiilka reer hebel baa ka sareeya reer hebel ma guursan karana waxaan leeyahay ilaahayna u toobad keena ilaahayna waan idin baraynaysa hadalka qoyska waxa weeyaan fanaanadaasi anaaba waxa weeyaan way ka dheerayd si cad waxay u sheegeen inaanay waxa weeyaan ku diidanayn sinji iyo waxa weeye abtirsiino midnaba laakiin aanay jirin meel loogu soo maray si saxda ahaa madax dhaqameedka xafladaha u sameynayeen waxa weeyaan ay dabcan ay ka dhawaajiyeen in arrimaha wax xubsadaan ay ahayd intaas un bay ka dhawaajiyeen adeereedooda Soomaali baynu nahay wax walbana waynu fahminaa isiliyeelina mayna dad waaweyn baan nahay habluhu waa bilmageytu qofku ama inanta hala dhasho ama ha u dhawaado ama ha u dhaxdo hablaha in miidiyaha la wareejiyo wada adeer waa laga qurux badayay arintaasi horta boqor arintaasi caawa koortu hore meedii soo gaadhin waan ka jawaabayay dhageysadeer arintan miidiyaha wada socota adigu waxa tahay dadkan moogtahay ehelka waa miidiyaha sida loo dhigdhigayay kolba inantan xanuun lagu sheego kolba in wax la dilo in suumadeeda la dilo waxaasoo dhan waxa ay ka koobayeen iyagu waxa isleeyay xitaa caseer kan hadlay ninkan hadlay isagu dad kale iyo reero kale ayuu ku raali gelinayaa in reerkoodu una reerka la xidhiidhin laakiin ilaahay kuma raali gelinayo markaan runta xaggeeda ugu tagno oo kelmaddan uu leeyahay annagu reerka wuxuu ismaqashiinayaan caalamka ama soomaalida kale oo ay leeyihiin waxay kaftanka idinka heli way idin moogtahay oo waxay doonayaan inay dad kale ku raali geliyaan laakiin ilaahay baa ka mudan in la raali geliyo ilaahay ayaa ka xaq leh in la raali geliyo ilaahay diintaynu haysano ilaahay nabi maxamed noogu soo calayhi salaatu wasalaam ayaa ka xaq leh in diinta lagu saleeyo moogtahay sidii laynoo soo gaadhay lagu raali geliyo laakiin waxa reelaa lagu raali gelinayaa marka uu leeyahay reerka lamaano xididin waxa weeyaan telefoonaa jira way iman karaan inta ay isleeyihiin waxbay laga qaban karaan bay ka qabanayaan laakiin waxaan waxa weeye message la siinayo cid kale arrintan laga hadlayaa inay leeyahay reerkaas ay saameeyeen soo mad karaan waxa weeyaan hadday wax qaldan yihiin in la saxo waa waajib waynu la saxaynaa si oo sahana Soomaalidu waxay ku maamaadaa qacmal geejiro hoos baa loo dhaqaa wax meediyaha gaaraya waxa adduunka oo dhan ay sidaa leeyihiin waa inan waa caar waxa weeyaan waa sharaftiisii waa walaashii soo mad garan wax fiican
haddii xitaa walaasheed qaldantay subxaan allah may qalad ilaahay baan qalad qaldamin bini aadankuu qaldamaa rag iyo dumar waynu qaldaminaa wax walba waynu qaldaminaa waxa fiican qaladkii inaan dee si hoosaana loo saxo oo si hoosaana loo siiyo oo hablaha aynu xaq dhowrno wacaarkeeni sharaf bay naga mudan yihiin marka waxaan leeyahay walaalkii Caseer iyo intii kaleba arrintaas media aynu ka dayno haddii aad wax moogtahay aad leedahay waxaan saxno waan ku soo dhaweynaynaa telefoonkayga waan kuu soo dirinaa waxaan ka qaadanayaa ninka media aan kuu soo marinaa ila soo xidhiidh airportka waan kuu soo roog cas baanu kuu dhiginaa xididnimadiina raalli baanu ka nahay waxaanu doonnaa adiga iyo Soomaaliyo kaleba waxaan leenahay war walaalihiin baanu nahay waan isguursan karnaa nin baa wuxuu yidhi gariiguba waa ka guursadaa haddii ay godo waan gunaanadii aniga gaalka kaaga geeya soo garan waxaana filayaa in aad hore ula socotay xiisadda qoyskaasi bal aragtidaada inagula soo wadaag qaybta commentiga isla markaana kasoo dhiiba ra'yigaaga waa walaalkan aadan karaama haddii ay tahay markii ugu horreysay aad noo soo booqato fadlan subscribe inagu sharaf haddii aad horey noola joogtayna madaxa ayaad noo saaran tahay aad iyo aadna waad u mahadsan tahay waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka like sii saarta markaasi si uu u baaho bulshada u gaadho aad iyo aad baad mahadsantihiin tan iyo muuqaalka mid lamid ah nabadgelyo